بسم الله الرحمن الرحيم warkii oo dhan safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Djibouti ambassador Cabdifataax Saciid Axmed ayaa safar ku tagay magaalo xuduudeedda Looyacado ee Somaliland waxaana safiirka halkaasi ku soo dhaweeyay oo ku qaabilay gudoomiyaha gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur oo gudanaya shaqo maalmeedkiisa iyo korjoogtaynta absamay socodka hawlaha shaqo ee xafiisyada ku yaala degmada Looyacado mas-uuliyiintan oo si wada jira u soo kormeeray xafiisyada shaqada iyagoo u kuurgalayay hanaanka iyo qaabka ay shaqada u socoto ayaa halkaa waxa ay kula kulmeen shaqaalaha kala duwan ee laamaha dowladda halkaasi oo ay warbixin kaga dhageysteen ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur iyo ambassador Cabdifataax Saciid Axmed ayaa shaqaalaha ku ammaanay sida uu wanaagsan ee gudanayaan hawl maalmeedkooda shaqo maamulka ka jira Qasa ayaa xaqiijiyay xalay in uu ka go'ay internetkii iyo isgaarsiintii kale ee Qasa iyo deegaamada ku yaala jiida Qasa oo aanay jirin isgaarsiin lagu wada xidhiidho oo ka jirta deegaanadaasi mas-uuliyiinta maamulka Qasa ayaa sheegay in ay isgaarsiintu goday kadib markii duqeyn laxaad leh ay halkaasi ay ku qaadeen ciidamada Israa'iil taasi oo si joogta ay uga wadaan taasina ay ku keentay in ay godo isgaarsiintii kala duwaneyd ee halkaasi ka jirtay gaar ahaan Qasa iyo hareeraheeda geesta kalena qaramada midoobay ayaa ka digtay barakicinta sida ulakaca Israa'iil ay u barakicinayso dadka rayidka ah ee ka qaxaya deegaamadooda ku yaala jiida Qasa waxaana ay qaramada midoobay u soo jeedisay Israa'iil in ay joojiso dadka rayidka ah ee ay ku qasbayso inay ka barakacaan deegaamadooda oo ay u qaxaan deegaamada kale ee ay Israa'iil u qorshaysay in ay u qaxaan Falastiiniyiinta ku dhaqan waqooyiga iyo bariga Qasa oo ku yaala deegaamada koonfurta Qasa warku waxa intaasi uu ku darayaa in ay tirada dhimashadu ay marayso 23,907 qof oo Falastiiniyiin ah dadkaasi ayaa la sheegay inay dhinteen intii ka dambeysay 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore dhammaadkiisii markii uu bilaabmay dagaalka ka socda jiida Qasa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay xalay in uu ahaa weerarkii lagu qaaday Xuutiyiinta habeen hore mid ka yimid xaggiisa oo uu ku amray ciidamada Mareykanku inay ku qaadaan weerarkaasi oo la sheegay in uu naafeeyey awoodda militari ee Xuutiyiinta amni darrada ka wada badda cas waxaana uu ku ballan qaaday madaxweyne Biden in ay ka go'an tahay in ay weeraradu halkaasi ay ka sii socon doonaan haddii ay Xuutiyiintu sii wadaan weerarada argagixisada ah ee ka wadaan badda cas geesta kalena afhayeenka guddiga amniga qaranka ee Mareykanka John Kerry oo madaxweynaha ku wehelinayay booqashadiisaasi ayaa warbaahinta u sheegay xalay in mar kale lagu darayo Xuutiyiinta liiska argagixisada ee dalka Mareykanka kaasi oo maamulkii hore ee Donald Trump uu liiska argagixisada uu ku daray 2021 waxaana ka saaray Xuutiyiinta liiska argagixisada madaxweynaha xilka haya ee Mareykanka Joe Biden oo go'aansaday weeraradan kadib in uu mar kale liiska argagixisada uu ku daro Xuutiyiinta taasina ay fursad u siinayso Mareykanka iyo isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo Mareykanku ee ku sugan badda cas in ay si fudud u weeraraan Xuutiyiinta oo loogu arko Mareykanka in ay yihiin oo looga arka Mareykanka inay yihiin argagixiso weeraro sharci darro ah ka wada biyaha caalamiga ah iyo kuwa badda cas warkaasina halku idinka imanaya waa Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland wadamada ku yaala
gobolka khaliijka ayaa ka cabsi qaba amni darro kaga timaada iiraan maleeshooyinka hubaysan ee xulafada ay yihiin iiraan ee ka howlgala waddamada yemen ciraaq suuriya iyo lebnaan kadib markii la weeraray xuutiyiinta habeen hore weerarkaasi oo ay wadajir u qaadeen habeen hore ciidamada maraykanka iyo ciidamada ingiriiska ayaa waxaa ka cadhooday weeraradaasi iiraan oo ku eedeysay maraykanka iyo ingiriiska in ay ku xadgudbeen qarannimada dalka yemen iyo madax bannaanidiisa waxaana ay ku hanjabeen mas-uuliyiinta dalka iiraan in la bartilmaameedsan doono danaha ay ku leeyihiin maraykanka iyo ingiriisku gobolka iyo caalamka intiisa kale hadalkan oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa waxaa la sheegay in uu walwal ku abuuray wadamada khaliijka ee kulaalaya biyaha gacanka khaliijka ee ay wax uga dhoofaan wadamada khaliijka kuwaasi oo ay muddo dheer colaadii ay ka dhexaysay ayaa baryahan dambe waxa ay isku soo dhowaadeen iiraan oo ay dib u soo ceshadeen xidhiidhkooda diblomaasiyadeed oo gonaa muddo rubuc qarniya waxa ay waddamada khaliijku ay ku baaqeen in la istajiyo oo arrintu aanay faraha ka bixin lana baajiyo dagaal ka bilaabma gobolka oo amni darro ku keena gobolka iyo caalamka intiisa kaleba lana sugo amniga biyaha caalamiga ah ee badda cas ee ay weeraradu ka socdeen muddada 2 bilooda warkii oo aad ka dhegaysanaysa